cudurka macaanka ama sonkorowga waa cudur la sababa kala duwan. Dadka qaba in ay dhiigooda ku badan tahay sonkorta ama waxa loo yaqaan hyperglycemia. Haddaba maanta inagu kama hadlayno cudurka macaanka iyo waxyaabaha keena iyo xaaladihiisa, laakiin waxaynu ka hadlaynaa cuntooyinka u wanaagsan qofka qaba cudurka macaanka. Haddaba ku soo dhawaada kanaalka Nafaqa Channel. ugu horeyn cuntooyinka u wanaagsan dadka qaba cudurka macaanka waxa kamid ah midhahan loo yaqaan afka Ingiriisida bitter melon oo afka Soomaaligana noqonaya qarre qadhaadh. midhahan waxa uu ka tirsan yahay qoyska qajaarka ee loo yaqaan Cucurbitaceae family, sidaa darteed magaca ugu dhow waxa uu noqonaya qajaar qadhaadh. midhahani dhulkeena kama baxo, wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa qaaradda Aasiya, gaar ahaan dhulka Hindiya. waxaa kaloo laga helaa Afrika iyo wadamada Latin America, balse wadamada dariska inala ah sida Kenya, Ethiopia iyo Uganda hadda way beertaan, waxaana laga helaa suuqyada khudaarta lagu gado ama lagu iibiyo. qajaar qadhaadhku waa midho jidhka u leh faa'iidooyin caafimaad oo aan la soo koobi karin, laakiin waxa uu caan ku noqday waxtarkiisa dhinaca macaanka oo la isku waafaqsan yahay inuu midho badan dhinacaas kaga horeeyo. sidaa darteed magaca cilmiyeed ee qajaar qadhaadhka waa Mamordica charantia, waana midho la cuno aadna u qadhaadh, badanaana waxaa la soo gooyaa inta uusan bislaan, sababtoo ah hadduu geedka ku sii daaho aad buu qadhaadhkiisu u sii bataa. daawade haddaynu iftiimino qajaar qadhaadhka iyo macaanka, waa midhaha ugu awoodda badan dhinaca sonkor yaraynta inta maanta la og yahay, wuxuuna bukaanada qaar u geli karaa beddelka daawooyinka loo qaato macaanka noociisa labaad. wadamo badan oo qaaradda Aasiya ku yaalaana cabitaankiisa ayay ku kaantaroolaan macaanka. sidaa darteed midhahan waxaa ku jirta maaddo la yidhaahdo charantin oo hoos u dhigta sonkorta dhiigga. waxay kaloo cilmi baadhayaashu sheegeen in qajaar qadhaadhka lagu arkay maaddo la yidhaahdo polypeptide B oo aad ugu eg maadada uu ka samaysan yahay hormoonka insulinta, taasoo rajo fiican gelisay cilmi baadhayaasha. cilmi baadhayaal kalena waxay sheegeen in qajaar qadhaadhka uu 3 qaab u yareeyo sonkorta, inuu sonkorta saameynteeda jidhka gudihiisa uu yareeyo, iyo inuu firfircooni ku sameeyo unugyada jidhka si sonkorta dhiigga ku jirta looga faa'iidaysto, iyo weliba inuu yareeyo adkaysiga unugyada qaarkood ay u leeyihiin hormoonka insulinta, taasoo keenta in sonkorta dhiigga ku badato. markaa taasi macnaheedu waa in midhahan uu u shaqayn karo sida dhowr daawo oo kale oo macaanka loo isticmaalo. haddaba daawada cilmi baadhayaashu waxa ay ku talinayaan in midhahan cabitaan ahaan iyo cunto ahaan iyo budo ahaanba loo isticmaali karo, iyadoo waxtarkiisa weliba uusan isdhimayn. markaa dad badan cabitaan ahaan ayay u shiitaan, qaar kalena waxay ku dhex jarjaraan ansalaatada ama saladhka, qaar kalena midhaha way qalajiyaan kadibna way shiidaan oo budo ahaan ayay cabitaanada iyo cuntada ugu darsadaan. ugu dambeyntii aynu ka gudubno geedkan loo yaqaan qajaar qadhaadhke. cilmi baadhis lagu daabacay Journal of Ethnopharmacology sanadku markuu ahaa 2011 waxay sheegtay in 2,000 oo miligram oo qajaar qadhaadh inuu u dhigmo 1,000 miligram oo ah daawada loo yaqaan metformin. dhinaca kalena cuntooyinka kale u wanaagsan dadka qaba cudurka macaanka waxaa ka mid ah caanaha geela, waayo nafaqada laga helo caanaha geela darteed waxaa ku jirta hormoonka loo yaqaan insulinta ee kaantaroola sonkorta. haddaba joogtaynta cabista caanaha geela waxay xakameeyaan macaanka, waxaana dhacda mararka qaar in cirbadda insulinta looga maarmo hadduu qofku ka fogaado waxyaabaha macmacaan. dhinaca kalena cuntooyinka u wanaagsan sonkorowga ama dadka qaba cudurka macaanka waxaa ka mid ah xabad sowdada, sababtoo ah dhakhaatiir u dhalatay dalka Hindiya ayaa waxay sheegeen haddii koob buuxa oo midhaha xabad sowdada iyo koob haafkiisa oo midhaha geedka bagalka ama loo yaqaan watercress seeds iyo koob haafkiisa qolofta rumaanka kadibna la isku shiido, kadibna qaada haafkeeda ama malgacad haafkeeda oo wax shiidan ah lagu qasto saliidda xabad sowdada, weliba subax kasta quraacda ka hor la isticmaalo muddo bila. waxay sheegeen inay sonkorta dejinayso, qofkana uu daawo kaga maarmi karo. sidoo kale cuntooyinka u wanaagsan dadka qaba cudurka macaanka ama sonkorowga waxaa ka mid ah lowska, waayo daraasad mar dhow la sameeyay waxaa la ogaaday in lowska uu yareeyo 21% halista cudurka macaanka. sababtana waxaa la sheegay inay tahay maaddo ku jirta lowska oo loo yaqaan manganese,
taasoo muhiim u ah kantaroolka sonkorta jidhka. dhinaca kalena malmalka ayaa u wanaagsan dadka qaba cudurka macaanka. inkastoo malmalka aan lagu tijaabin dad qaba sonkor, laakiin cilmi baadhis lagu sameeyey dalka Kuwait waxaa la arkay in dooliyaal ama jiirar qaba macaanka looga daaweeyey malmalka. markii la sii baaray qaabka uu sonkorta u kantaroolana waxaa la arkay inuu malmalku hoos u dhigo sonkorta uu beerku sameeyo. haddaba isbarbardhig lagu sameeyey malmalka iyo daawada sonkorta loo isticmaalo waxaa la arkay inuu ka waxtar badan yahay daawada 75%. waxayna cilmi baarayaashu soo jeediyeen in ku daaweynta malmalka uu fursad u noqon doono dadka qaba cudurka macaanka noociisa labaad haddii lagu sameeyo cilmi baarisyo dheeraada. cuntooyinka kale ee u wanaagsan dadka la nool cudurka macaanka waxaa ka mid ah baamiyaha. baamiyuhu waxaa ugu horeeya geedaha lagu daaweeyo xanuunka macaanka. cilmi baarayaal tiro badan ayaa geedkan xoogga saaray si ay uga sal gaadhaan qaabka uu la dagaalamo macaanka. waxayna qaar ka mid a sheegeen inay mustaqbalka rajayn doonaan inuu baamiyuhu geli doono booska daawada kiniiniga sonkorta loo qaato. waxayna ku sameeyeen daraasado aad u badan oo arrintaas khuseeya. waxaana la arkay inuu baamiyuhu jidhka ka caawiyo kantaroolidda sonkorta. waxayna cilmi baarayaashu ku hanweyn yihiin in baamiyuhu daawada mustaqbalka laga samayn doono taasoo lagu xakameeyo macaanka. waxaana lagula talinaya dadka qaba cudurka sonkorta inay joogteeyaan cunista baamiyaha. dhinaca kale geedka loo yaqaano bocorka ayaa isaguna ka mid a cuntooyinka u wanaagsan dadka qaba cudurka macaanka ama sonkorowga. gaar ahaan dufanka ku jira ee loo yaqaano omega 3 waa dufan caafimaadka u roon. waxaana midhaha bocorka lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee dufankaas laga helo. haddaba dufankaasi waxa uu isku bedelaa maado loo yaqaano alpha linolenic acid oo muhiim u ah ka hortagga macaanka ama nusqaanta hormoonka insulinta. sidoo kale daawade midhaha sabiibka ayaa isaguna ka mid a cuntooyinka u wanaagsan dadka qaba cudurka sonkorta ama macaanka. waayo waxaa la arkay in sabiibka uu xakameeyo nuugista sonkorta. wuxuu kaloo habeeyaa heerarka hormoonada kala ah leptin iyo ghrelin oo maskaxda u sheega heerka gaajada iyo dheragta qofka. geesta kale basbaaska ayaa isaguna ka mid a cuntooyinka u wanaagsan dadka qaba cudurka sonkorowga nooca labaad. waayo dadka qaba sonkorowga nooca labaad waxaa lagula taliyaa inay basbaaska ku dadaalaan maadaama la arkay inuu firfircooni ku abuuro ganaca si hormoonka insulinta ee yar uu u bato kadibna sonkorta loo yareeyo. geedka huruudda ayaa isaguna ka mid a cuntooyinka u wanaagsan dadka qaba cudurka macaanka. waayo huruuddu waa macaan dhime. huruudda waxay hoos u dhigtaa macaanka. waxay firfircooni siisaa hormoonka insulin. cilmi baarisyada mid ka mid a waxay sheegtay in huruudda ay ka awood badan tahay 400 oo jeer daawada la yidhaahdo metformin oo ah daawada ugu caansan ee loo isticmaalo ama loo qaato macaanka ama sonkorowga nooca labaad. waxaa kaloo la arkay in huruudda ay baabiso dhibaatooyinka ay sonkortu ku reebtay jidhka qaybihiisa kala duwan sida neerfaha, keliyaha, indhaha, xididada. cilmi baarayaasha qaar ayaa tilmaamay rajo ah in haddii insulinta ay dib u howlgasho oo firfircooni yeelato in cudurka macaanka uu ka tegi karo qofka. geesta kale shaaha lagu daro liidhanaanta ayaa isaguna ka mid a cuntooyinka u wanaagsan dadka qaba cudurka macaanka. waayo dadka aadka u jecel cabista shaaha haddana raba inay miisaanka ridaan ama sonkorba qaba waxaa lagula taliyaa inay sonkorta beddelkeeda shaaha lagu darsado liindhanaanta maadaama eebba ku abuuray liinta sonkor dabiiciya oo aan macaanka waxba u dhimayn laguna cayilayn. saliid saytuunka ayaa iyaduna ka mid a cuntooyinka u wanaagsan dadka qaba cudurka macaanka. waayo saliid saytuunka waxay yaraysaa halista macaanka noociisa labaad. waxaana la xaqiijiyey in saliid saytuunka ay kordhiso shaqada iyo firfircoonida hormoonka insulin. sidaa awgeed waxay kordhisaa xakamaynta cudurka macaanka. qorofalka ama geedka loo yaqaano qorfaha ayaa isaguna ka mid a cuntooyinka u wanaagsan dadka cudurka macaanka qaba ama sonkorta nooceeda labaad. cilmi baadhis la isbarbar dhigay qorfaha iyo daawada ugu caansan ee macaanka loo adeegsado ee loo yaqaano metformin waxaa la arkay inuu qorfuhu kaga fiican yahay markay sonkorowga ama macaanka uu cusub yahay ama uu bilowga yahay. sidaa darteed maado ku jirta qorfaha oo sonkorta dejisa waxaa loo yaqaanaa silamaldehyde. ugu dambayntii tale aan ku siiye sonkorowga aan kantaroolka lahayn ayaa kordhiya khatarta cudurrada halista sida inuu waxyeeleeyo aragga, wadnaha, keliyaha, maskaxda iyo xubno kale oo jidhkaaga ka mid a. si kastaba ha noqotee cunidda cuntooyinkan ayaa kaa caawinaya ilaalinta sonkorta dhiigga iyo sare u qaadista shaqada insulinta. waxayna hoos u dhigi kartaa hoos u dhigista khatarta aad u yeelan karta xanuunada aynu ka soo hadalnay.
ugu dambayntii cunto walba oo aan maanta ka hadalnay waa mid waxtarkeeda cilmi baadhis lagu xaqiijiyey. haddaba haddaad si xad dhaaf ah u qaadato waxaa laga yaabaa inay wax ku yeelayso. sidaa daraaddeed fadlan xaddi yar ka qaado maalintii oo dhan, hana isku badinin.